hal eray iyo laba eray waxaa jecel fahmi karo oo keliya qof horay u arkay jacaylka xanuunka uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay marka waxay tahay dad badan jacaylku wuxuu fashilmeen waynu arkaan dumin ahaan inay yihiin kulama sii daro laakiin runtaa waxay tahay marba haddii aad jecel soo marto waxaad u dhowdahay naxariista waxaad u dhowdahay baniaadanimada sidoo kale waxaad u dhowdahay garashada ay noloshu leedahay marka aad haysato qof adiga ku jecel waxaa tahay qof duni ahaan dhamaystiran qof xayaatadiisu ay qurux badan tahay runtii sidoo kalena qalbigaaga wuxuu dareemayaa mar walba dhamaystirnaa anaga bani aadam aan nahay waana loo abuuray khaladka hala yaabin qofka aad jeceshahay markii uu khaladkaaga sababtu waxay tahay adduunyada khalad walba wuxuu leeyahay ka daba tag waa la saxaa waa la xaliyaa waa la iska fahmaa sidoo kaleetana dadka nolosha wadaagay oo nasiib u yeeshay qofka kale uu jeclaa markaa inuu dhinac seexdo inuu ka dhinac tooso runtii waxaan aniga had bala tali lahaa inuusan noloshaas ka soo qaadin wax uu si fudud ku helay sababtu waxay tahay dunida wax walba haddii aad ka soo qaado inaad fudeed ku heshay waxay kugu dhaafayaan isla fudeedkii aad u fahamtay qof inaad si sahlan daad ugu jeclaayna waxay lamid tahay adigoo naftaada ka beesheegay sababtu waxay tahay qof jecel ma jiro nasiib daro inuu noloshiisu dhamaato qof dhan markii aad ku fikirayso inaad noloshiisa ku jirto waxaa loo baahan ka hor inaad ku fikirto waxa aad samaynayso miisaaniyad ahaan dhibaatada ay keeni karaan anyway asxaabta ma jecli jecel ka sheekeen laakiin dadka aan jecel waa salaamadiin